haddaba intii Addis Ababa la joogay ayaa waftigani waxa loo qadhaadhiciyay dhinaca wadanka Soomaalida deegaanka Soomaalida ay degan yihiin gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jigjiga joogna magaalada la yiraahdo Dirri Dhabo ee caanka ah taasaan joognaa waxaana loogu soo dhaweeyay si fiican waxaan hadda fadhinaa hotel aad u fiican oo qabow la rusheeyay dhir wanaagsan ka baxday joogna waxa weeye magaalada Dirri Dhabo waa magaalo madaxda dalka Itoobiya waxaan ugu nimid maartay jawi aad u qurux badan iyo hoteelada maartay ku shaqeeyaan ayaanu hadda waxaynu nasiina ku qaadanaa annaga u sii kicitabayna حاجة جيجا. أنت وعند شغلنا مقالة الدير دبو وها عاصمة اللباد وطن إثيوبيا مقالة سؤال يا بدن كرينا يا شغلنا حانو ترانزيت كلها هي مقالة الدير دبو وقطال مقالة مدح فنان مقالة وراد عاصمة إثيوبيا هلك سؤال سؤال جيجا. أنا شغلنا مقالة الدير دبو مدح اللباد وطن إثيوبيا. أنا واحد كان معي مقالة عديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا مقالة عاد قرح بدن معنا عادي عاد الله يعمل قرح ذي ونا كذا. جوجنا مقالة محضرات إثيوبيا اللي راح عديس تبدأ إسلام مركزنا اسمه برغونيا ومقالة عادي نوع كل عتبة جلسية خاصة هذا قرح بدن جو جدون هودنا عادي في عيا. أنت واحد شغلنا مقالة الدير دبو. قربا كوده بس مقالة. هذا ولي معنا من هراء ومن عمرك جوري ساتمادو عمرك جور سات فاس صوت البيت فكرها ما حد كيستي فكرها وحنا كيستي مقالة أعد قروح مقالة أو وقتي لحد صرفور لا تضاعف صرفور الدوب يقصوا متقرد استنشري وهو ذي أعد في عنته ورجع والبقالون جيلو كذا ورقصين جوت الله قصوا حاجة بحق الدوب كله قدر يستوي مقالة في عنه كاد بيقول بدن تاي مقالة الدير دبو وين نعجبيسي وأنا كهلاي مارت عمله ده مارت قبو أنا هاين كلايل كبدن أنا هاين مقالة كله غير وناكسن كتالو ويان waftigaasi ayaa waxa loogu soo dhaweeyay si aan caadi ahayn halkaasi oo gabdho aad u labisnaa hidiga dhaqanka ay ku soo dhaweynayeen cayaaraha Soomaalidu ay u leeyihiin hidiga dhaqanka ee loo yaqaan Jandeerta magaaladaasi Jigjiga ayaa waxa loogu sameeyay waftigan casuumad aad iyo aad u weyn xafladaasi oo quruxda badan leh ayaa waxa markii ugu horeysay lagu soo dhaweynayay heeso loogu talagalay waftigan uu horkacay injineer Saaxidiin oo ah gudoomiyaha ururka ONLF waatan heestii quruxda badneed ee runtii loo alifay in lagu soo dhaweeyo
waagaag heestaas ka bacdi ayaa waxaa runtii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cabdifataax xeriyadiisiina waxaa ka mid ahaa mar uu la hadlayay xafladii halkaasi loogu sameynayay dadkan in lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga sida tan shacabka Soomaaliyeed in oo nagaf iyo dowladda Itoobiya heshiis markaasi wadahadal ugu socdo oo ay bilaabeen wadahadalo nabadeed Soomaaliya waxay ku maamulaa iyo waxay isku yimaadaan dadka Soomaaliyeed waxa u dana siday Soomaalidu ku maamulaa sidoo kale maanta waxaan ku leeyahay ka badnay siday Soomaalidu ku maamulaa wixii ugu shaqeeyay ilmaha loo taamilay hawiyaan wixii u roon dhammaan hogaamin ayaa u shaqeeya Soomaaliyeed runtii go'aanka ay qaateen markooda maanta ka madaxdiisii la joogto waxa weeye go'aan geesinimo oo u baahan in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay taageerto sababtoo ah in dagaal la keeno waa wax dhibir laakiin in nabad la qaato aad loo dhibanta nabadda aad fara badan leh waxaa dareemi kartiin in la qaato go'aan nabadeed inuu daxal ka qaraan yahay oo ay qaadan karaan aqliyada saliimka ah iyo cabdifataax khudbadiisii markii uu intaasi uu kusoo gabagabeeyey ayaa waxaa markaasi lagu soo dhaweeyey masraxa si aad iyo aadna loogu soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka mudane cabdi cumar ereyadiisiina waxaa ka mid ahaa isagoo oo kooban sida tan howlkan waa ku cusub tahay arrintan waa xafladda oo kale maalin hore u qabanin waxaan dhihi karaa xaflad aad iyo aad qaali ah ama dabaaldeg aad iyo aad qaali ah ayay tahay waana soo dhaweynayna waana nahay boqolkiiba aad baan usoo dhaweynay sababtoo ah waxaan u oganahay nabad baan u oganahay waayo nabad laan waxba lama qaban karo waxaa deegaanka dowladda Soomaalida Itoobiya ka reebay deegaanada kale waa nabad laan weyn marka xaflad nabad lagu qabanayo ama dad nabadaya xaflada qateen waxaan dhihi karaa waxay ka qaalisan tahay xafladaha kale way ka qaalisan tahay dhammaan haddii la eego deegaanka Soomaalida maanta ama dowladda deegaanka Soomaalida marka Itoobiya la yidhaahdo ama Itoobiya laga hadlayo haddii la yidhaahdo xagga baaxada ka koowaad ama ka labaad baan dhahay laakiin qoraalka wuxuu yahaa waa ka labaad ama marka Itoobiya laga hadlayo dadka markay keena waxaa naga badan oo keliya Itoobiya marka la eego oromada iyo xabashada marka waxaan dhihi karaa Itoobiyaanimadooda mid aan cidna uga fadhina maayo waa mid aan ku faanayno haddaan anaga looga fadhiyo marka deegaanka Soomaalidu wuxuu ka mid yahay dowladaha sagaalka ee ka jira ee dalka Itoobiya sida uu soo yahay wuxuu leeyahay 952 degmo tiraan badan wadadana waa ku nooshahay madaxweynaha khudbadiisii kadib markii uu sharaxay deegaanka dowlad goboleedka inta uu ka kooban yahay iyo inta mas'uuliyadooda ay gaarsiisan tahay iyo sida ay hamuun ugu qabaan nabadgelyada ayuu waxa kale oo dhinaca kale ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka ONLF Engineer Salaxuddin oo isagana ereyo kooban halkaasi ka jeediyay waana kan ee ku soo dhawaada يعني أما مساعدة دولة أمريكا وحيدة حالة سيجارة سلام يا لهوينا اسمه صوالنا بدونيها حسبك ما رياش أما اسمه صوالنا كل يعني وزير عيادة يوفي حتى سلام هذا
حزبك كترسل إنه أنتي ما كترسل سوى بالعصام يا ولا يعرف ولا الحميدية الله كان السوريين يتكلم والله كيف الإسلام تكلم سوى صفرية يو أنتي هو السيسي قال عن سلام يا قبلتي حتى السنة بيعملوا إنه هيك عاديا يعني حفرة وحكومة نهاية سبحان الله يسأل سيدا الله كبير يا فنان لماذا يوم أو إسماء وكان هذا وصفها سيدا وكان لكن ما فريق ليش حتى إن كبير حتى كيسي إذا كنا لماذا مصابرتين يعني سكولة وجامعات مصابرتين لكن أنا بفرح بصراحة waagaag injineer Saalaxudiin iyo ereyadiisa hadan inta ugu gudubno xafladu inta kaliya kuma koobneen waxa ka hadlay mas'uuliyiin badan waxana ka hadlay runtii dad badan oo iyagu ku soo dhaweynaya ururka ONLF magaalada Jigjiga waxaase sidoo kale barbar socday iyagana hidiya dhaqankii iyo heesii badan ee halkaas loogu talagalay bal heestan kalena haatan aanu daawano halkankay wadaan reer Subayr waa habownime hawiraan naftooday galeen hadima xeel dheere
xabashkaa hawada duulayee badaha soo haabtay ee soomaalidii heellanayd halabsadee fuulay anaa keligay heensaynayoo soo hoggaanbaraya waa riyo hurdadu keentay iyo qaar habsaanihiya bal inay dagaalkay humeen lagu halaagmaayo ma hayaan hub iyo saanad iyo ciidan heeganihe ma hayaan cid hiil iyo waxqabad kula heshiiyeene kuwii hayb u xigay baan haddeer hoyga gelinayne darbaa magaca haaraamayoo kaaga haayiree harti iyo bahgari baan hadayn ficil horseedkiise hareertaa galbeed qaar jiraan soo hinqanaqayne gari iyo jidwaaq la hubsayoo waa hamranayaane cawlyahan hub soo qaatay baan lagu hallaynayne reer aw humaaggii galay wada hagoogtaane hawiyaan hadh kuu jiidahayn waa idin hodayaane isaaq hadalki daayoo dhammaan waa handanayaane markii adiga hoobiya madfaca lagu huluuqsiiyo markii adiga hoobiya madfaca lagu huluuqsiiyo hambadii dalkiinnii ka hadhay waa hantiyayaane annagana hamaasiga xigaa waa habeen qudhahe makaahiil halkuu naga xiga ahaad ku dhacayaaye hara xagarray kama foofiyaan geel horweyne ahe abraahiin hubkii lala dhacay hibasho weyn reebye suldaankii hogtaa lagu fadhiyey haatan laga waaye raggii halaha lagu maali jiray waa hangool jabane arrintaa bal hoos ugu faqoo hubantideed keena haddii kaleese anigaa hungiyo ruux hadhiina ah afartaana haasaawo iyo hoga tusaalayn wagaag intaas aan uga gudubna xafladii quruxda badneed ee loogu sameeyay jigjiga tiyaatarka weyn ee la magac baxay sayid maxamed cabdulla xasan loo bixiyay tiyaatarkaasi oo runtii aad iyo aad u qurux badan qadiimina ah ayaa runtii xafladda quruxda badan ee loogu sameeyay ururka ONLF kadib xafladda habeenkaasi subaxiina waxa gudoomiyaha ururka ONLF uu dhaadhacay ciidamada ururka ONLF ee soo galay gudaha ee markaas iyagu nabad qaaday qurigana tiiriyay ayaa waxaanu ku booqanay xarun weyn oo halkaas lagu diyaariyay ilaa askar gaaraysa boqolaal gudoomiyaha oo si toos ah ula hadlaya ciidamadaasi iyagu ururka ONLF ahaan jiray laakiin hadda nabad qaatayna bal haatan gudoomiyaha khudbadiisii